ciidamada xoogga qaranka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray dagaal xalay ay sheegeen in si weyn ay ugu jabiyeen ururka Al-Shabaab. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa guulo ka gaadhay xalay dagaal ka dhacay duleedka magaalada Marko ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi oo ay isugu hor yimaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ereyadaasi ku sugnaa. qoraal lagu baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in howlgallo baaxad leh oo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ka fuliyeen deegaanka Jilib Marka ee gobolka Shabeellada Hoose in lagu burburiyey fariisimo ay halkaasi ku lahaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Howlgalkan oo ciidanka xoogga ay fuliyeen xalay ayaa sidoo kale waxaa halkaasi ay ku dileen ugu yaraan 6 xubnood oo ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab sida ay sheegeen ciidamada dowladdu, iyaga oo sidoo kalena kala wareegay hub iyo saanad military iyo weliba hanti ay halkaasi uga carareen ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay ciidanka xoogga qaranka Soomaaliyeed oo waayihii u dambeeyayba dagaal xooggan kula jiray ururka Al-Shabaab, iyaga oo ka xoreeyay deegaano badan kuwaasi oo ay horay fadhiisimo ugu lahaayeen. dhinaca kale, qaar ka mid ah saraakiisha xoogga dalka ee hogaaminaya dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliya u sheegay in ay weli halkaasi ka wadaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. waxaa sidoo kale ay sheegeen in ay isu soo dhiibeen qaar ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo hadda ay ku socdaan baaritaano iyo in su'aalo la weydiiyo ku saabsan isa soo dhiibistooda iyo waxyaabihii ay qaban jireen. maalintii shalayta ayay ahayd markii sargaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab uu isku soo dhiibay ciidamada xoogga qaranka Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Bakool, gaar ahaan taliyaha guud ee ciidamada xoogga qaranka u qaabilsan magaalada Xudur iyo gobolkaasi. ciidamada xoogga oo waayihii u dambeeyayba waday dardar xooggan, kuwaasi oo si weyn ay ula dagaalamayeen ururka Al-Shabaab ayaa waxay sheegeen in go'aanka kama dambaystaha uu yahay inay guud ahaanba deegaanada ay baaqiga ku yihiin laga xoreeyo oo dhulka Soomaaliyeed uu kusoo noqdo sidii caadiga ahayd. taliyaha guud ee ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed oo mar dhow la magacaabay Generaal Odawaay Yuusuf Raage ayaa sheegay in isbedel xooggan ay ciidanka ku sameeyeen, isla markaasina hadda loo fadhiyo sidii loo xoreyn lahaa dalka Soomaaliyeed. dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna sanadahan dambaba qoraysay ciidamo iyada oo ay soo baxeen dhalinyaro tiro badan, kuwaasi oo tababaro ka soo qalin jebiyey isla markaasina lagu daray ciidamada xoogga qaranka si ay howlgallada uga qayb qaataan. sidoo kale dhowaan ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay la wareegtay ciidamadii ahlu sunna wal jamaaca iyada oo ku dartay kuwa xoogga qaranka, sidoo kalena ciidamo kale oo qabaa'ilaad ah oo hub iyo gaadiid watana lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya. ayna hadda ciidamada xoogga qaranku aad u tiro badan yihiin, lana qiyaasayo in ay ku filaan karaan mar dhow amniga dalka. dowladda dalka Kenya ayaa sheegtay qorshaheeda xiga kadib markii loo dhigay kiiskii badda dib. dowladda Kenya ayaa horaan codsatay in maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay dib u dhigto kiiska u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. haddaba dowladda Kenya ayaa arrintaasi dib uga hadashay ujeedada ay ka lahayd. dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday qorshaheeda xiga ee kiiska dacwadda badda Soomaaliya kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay dib u dhigtay ilaa 4 November. wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma ayaa sheegtay in Kenya ay ku dadaali doonto in ka hor maxkamadda ay Soomaaliya la gaarto heshiis ka baxsan maxkamadda. arrintan ma aha wax caddaan iyo madow ah, xal kasta oo waara waa in uu noqdaa mid laba dhinac ah. waxaan door bidaynaa heshiis laga wada xaajoodo, ayay tiri Monica Juma. lama ogo sababta keentay in dowladda Kenya oo og in Soomaaliya ay horay u diiday in arrintani ay wada hadal ka gasho, ay hadda Kenya ku macnaysay dib u dhig ay codsatay in uu ahaa mid ay la rabto in ay Soomaaliya la hadasho. ma ogin in ay Kenya ka heshay dowladda Soomaaliya wax ogolaansho la xiriira, balse lama filahayo in Soomaaliya marna ay ogolaanayso in ay wada hadal ka gasho arrinta biyaha badda, taasi oo ay 2 bil oo keli ah dib u dhigtay maxkamadda cadaaladda adduunka oo bisha November 4teeda dib loogu fadhiisanayo, isla markaasina la kala xukumayo Kenya iyo Soomaaliya. hadalka Juma ayaa qayb ka mid ah loo fasirtay in Kenya ay u aragto go'aanka maxkamadda mid hal dhinac ah oo Soomaaliya kaliya ay doonayso, sidaas darteedna jumladda ah xal kasta oo waara waa in uu noqdaa
mid laba dhinaca ay tahay hanjabaad ah in aysan aqbali doonin go'aanka ACJ. toddobaadkii tegay maxkamadda ACJ ayaa aqbashay codsiga Kenya ee ahaa in kiiska dib loo dhigo, hase yeeshee waxay diiday waqtigii ay Kenya doonaysay ee ahaa sanadkan, waxayna ogolaatay keliya 2 bil iyada oo Kenya ay codsatay 12 bilood. warka cusub ee maanta ka soo baxay Kenya ee ah in ay isku dayeyso in xal laga gaaro kiiska ka hor maxkamadda ayaa caddayn u ah tuhunkii horey loo qabay ee ahaa in qiilkii Kenya ay ku codsatay dib u dhigista ee ahaa in ay qoranayso qareenno cusub uu ahaa mid aan jirin, balse ay doonaysay keliya waqti dheeri ah oo ay ku cadaadiso dowladda Soomaaliya iyada oo dalban haysa in dib loo dhigo kiiska maxkamadda cadaaladda adduunka ee ACJ la yaala. dhanka kale gorgor ayaa si yaab leh dhaawac iyo dil ugu geystay carruur ku sugnayd dhulka Soomaali galbeed ee dalkaasi Itoobiya ka tirsan. dadka ku nool degmada Gaashaamo ee Somali State ayaa sheegay in ay arkeen shimbir weyn oo loo malaynayo in uu gorgor yahay oo carruurta qaadaya. hal cunug ayaa dhintay, 2 kalena way ku dhaawacmeen weerarka uu shimbirkaasi halista ah ku soo qaaday carruurtaasi. maamulka waxa ay aaminsan yihiin in arrintan ay ugu wacan tahay abaaraha ka jira gobolka. Mona Shucayb waa hooyada dhashay mid ka mid ah carruurta dhaawacantay, waxa ay saxaafadda u sheegtay in ay maqashay cunugeeda oo qaylinaya kadibna ay dibadda u soo baxday. waxay tiri waxaan maqlayay cunuga oo aad u qaylinaya guriga ayaana orod uga soo baxnay. waxaan aragnay isaga oo inanka dhulka ku haya oo afka ku garaacaya, wuxuu ku qaylinayay hooyo hooyo. waan ku cararay waana ka fujiyey, wuxuu ku hayay gacmaha oo dhulka ayuu ku baktiinayay. maxamed xasan waa askariga booliska ee qaabilsan nawaaxigaasi, wuxuuna sidoo kale sheegay in askar badan ay geeyeen hawdka lana amray in la toogto gorgorkaas weerarkaa soo qaaday. ciidamada xoogga qaranka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray dagaal xalay ay sheegeen in si weyn ay ugu jabiyeen ururka Al-Shabaab. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa guulo ka gaadhay xalay dagaal ka dhacay duleedka magaalada Marko ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi oo ay isugu hor yimaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ereyadaas ku sugnaa. qoraal lagu baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in howlgallo baaxad leh oo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ka fuliyeen deegaanka Jilib Marka ee gobolka Shabeellada Hoose in lagu burburiyey fariisimo ay halkaasi ku lahaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. howlgalkan oo ciidanka xoogga ay fuliyeen xalay ayaa sidoo kale waxaa halkaasi ay ku dileen ugu yaraan 6 xubnood oo ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab, sida ay sheegeen ciidamada dowladdu, iyaga oo sidoo kalena kala wareegay hub iyo saanad military iyo weliba hanti ay halkaasi uga carareen ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay ciidanka xoogga qaranka Soomaaliyeed oo waayihii u dambeeyayba dagaal xooggan kula jiray ururka Al-Shabaab iyaga oo ka xoreeyay deegaano badan kuwaasi oo ay horay fadhiisimo ugu lahaayeen. dhinaca kale qaar ka mid ah saraakiisha xoogga dalka ee hogaaminaya dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliya u sheegay in ay weli halkaasi ka wadaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. waxaa sidoo kale ay sheegeen in ay isu soo dhiibeen qaar ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaasi oo hadda ay ku socdaan baaritaano iyo in su'aalo la weydiiyo ku saabsan isa soo dhiibistooda iyo waxyaabihii ay qaban jireen. maalintii shalayta ayay ahayd markii sargaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab uu isku soo dhiibay ciidamada xoogga qaranka Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Bakool, gaar ahaan taliyaha guud ee ciidamada xoogga qaranka u qaabilsan magaalada Xudur iyo gobolkaasi. ciidamada xoogga oo waayihii u dambeeyayba waday dardar xooggan kuwaasi oo si weyn ay ula dagaalamayeen ururka Al-Shabaab ayaa waxay sheegeen in go'aanka kama dambaystaha uu yahay inay guud ahaanba deegaanada ay baaqiyo ku yihiin laga xoreeyo oo dhulka Soomaaliyeed uu ku soo noqdo sidii caadiga ahayd. taliyaha guud ee ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed oo mar dhow la magacaabay Generaal Odawaye Yuusuf Raage ayaa sheegay in isbedel xooggan ay ciidanka ku sameeyeen isla markaasina hadda loo fadhiyo sidii loo xoreyn lahaa dalka Soomaaliyeed. dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna sanadahan dambaba qoraysay ciidamo iyada oo ay soo baxeen dhalinyaro tiro badan kuwaasi oo tababaro ka soo qalin jabiyey isla markaasina lagu daray ciidamada xoogga qaranka si ay howlgallada uga qayb qaataan. sidoo kale dhowaan ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay la wareegtay ciidamadii ahlu sunna wal jamaaca iyada oo ku dartay kuwa xoogga qaranka, sidoo kalena ciidamo kale oo qabaa'ilaad ah oo hub iyo gaadiid watana lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya. ayna hadda ciidamada xoogga qaranku aad u tiro badan yihiin lana qiyaasayo in ay ku filaan karaan mar dhow amniga dalka.
dowladda dalka Kenya ayaa sheegtay qorshaheeda xiga kadib markii loo dhigay kiiskii badda dib. Dowladda Kenya ayaa horaan codsatay in maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay dib u dhigto kiiska u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Haddaba dowladda Kenya ayaa arrintaasi dib uga hadashay ujeedada ay ka lahayd. Dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday qorshaheeda xiga ee kiiska dacwadda badda Soomaaliya kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay dib u dhigtay ilaa 4 November. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma ayaa sheegtay in Kenya ay ku dadaali doonto in ka hor maxkamadda ay Soomaaliya la gaarto heshiis ka baxsan maxkamadda. Arrintan ma aha wax caddaan iyo madow ah. Xal kasta oo waara waa in uu noqdaa mid laba dhinac ah. Waxaan door bidaynaa heshiis laga wada xaajoodo, ayay tiri Monica Juma. Lama oga sababta keentay in dowladda Kenya oo og in Soomaaliya ay horey u diiday in arrintani ay wada hadal ka gasho, ay hadda Kenya ku macnaysay dib u dhig ay codsatay in uu ahaa mid ay la rabto in ay Soomaaliya la hadasho. Ma ogin in ay Kenya ka heshay dowladda Soomaaliya wax ogolaansho la xiriira, balse lama filahayo in Soomaaliya marna ay ogolaanayso in ay wada hadal ka gasho arrinta biyaha badda, taasi oo ay 2 bil oo keli ah dib u dhigtay maxkamadda cadaaladda adduunka oo bisha November 4 dib loogu fadhiisanayo isla markaasina la kala xukumayo Kenya iyo Soomaaliya. Hadalka Juma ayaa qayb ka mid ah loo fasirtay in Kenya ay u aragto go'aanka maxkamadda mid hal dhinac ah oo Soomaaliya kaliya ay doonayso, sidaas darteedna jumladda ah xal kasta oo waara waa in uu noqdaa mid laba dhinac ah ay tahay hanjabaad ah in aysan aqbali doonin go'aanka ICJ. Toddobaadkii tagay maxkamadda ICJ ayaa aqbashay codsiga Kenya ee ahaa in kiiska dib loo dhigo, hase yeeshee waxay diiday waqtigii ay Kenya doonaysay ee ahaa sanadkan, waxayna ogolaatay kaliya 2 bil iyada oo Kenya ay codsatay 12 bilood. Warka cusub ee maanta ka soo baxay Kenya ee ah in ay isku dayayso in xal laga gaaro kiiska ka hor maxkamadda ayaa caddayn u ah tuhunkii horey loo qabay ee ahaa in qiilkii Kenya ay ku codsatay dib u dhigista ee ahaa in ay qoranayso qareenno cusub uu ahaa mid aan jirin, balse ay doonaysay kaliya waqti dheeri ah oo ay ku cadaadiso dowladda Soomaaliya iyada oo dalban haysa in dib loo dhigo kiiska maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ la yaala. dhanka kale Gorgor ayaa si yaab leh dhaawac iyo dil ugu geystay carruur ku sugnayd dhulka Soomaali galbeed ee dalkaasi Itoobiya ka tirsan. Dadka ku nool degmada Gaashaamo ee Somali State ayaa sheegay in ay arkeen shimbir weyn oo loo malaynayo in uu Gorgor yahay oo carruurta qaadaya. Hal cunug ayaa dhintay, 2 kalena way ku dhaawacmeen weerarka uu shimbirkaasi halista ah ku soo qaaday carruurtaasi. Maamulka waxa ay aaminsan yihiin in arrintan ay ugu wacan tahay abaaraha ka jira gobolka. Mona Shucayb waa hooyada dhashay mid ka mid ah carruurta dhaawacantay. Waxa ay saxaafadda u sheegtay in ay maqashay cunugeeda oo qaylinaya kadibna ay dibadda u soo baxday. Waxay tiri waxaan maqlayay cunuga oo aad u qaylinaya guriga, ayaana orod uga soo baxnay. Waxaan aragnay isaga oo inanka dhulka ku haya oo afka ku garaacaya. Wuxuu ku qaylinayay hooyo hooyo. Waan ku cararay waana ka fujiyay. Wuxuu ku hayay gacmaha oo dhulka ayuu ku baqtiinayay. Maxamed Xasan waa askariga booliska ee qaabilsan nawaaxigaasi, wuxuuna sidoo kale sheegay in askar badan ay geeyeen hawdka lana amray in la toogto Gorgorkaas weerarkaas soo qaaday.